السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أي أسقناتي مهدي أمان إذلكيد الله سونا هنشي أو هدنا أرزاقي أو هدنا نسيدك وحمغلا إيو إن حق أركا intaasi kadib waxaan ku salinayaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naxariisi nabadgeliyo dushiisa ahaatee maxaa yeelay qeyr ma jiro ilaa haduu jiro wuuna tusay sharna ma jirto ilaa haday jirtana wuu nooga digay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون hadday ku warsadaan nabiga waddoomada xaggayga anigu waan dhawahay waana ajiibaa yacni aqbalaa baryada markay i baryaan ee hay maqleen iyaguna hana i rumeeyaan si ay u hanuunaan walaalayaal waxaa dhaba oo xaqiiqo ah qofka muslimka ah marka uu dareemo dhibaato ama murugo ha noqoto faqrinimo ama xanuun wuxuu u cararaa xagga Allah subhanahu wa ta'ala alle in loo carara xaggiisana wax ka wanaagsan ma jiro waxaan ku ogaan doonaa qiso aan raba inaan qalbiyadiina iyo dhagihiina aan ku soo jeediyo laga yaabay inayna anfacdo aakhiro iyo adduunyaba haddaba waatan qisada gabar ayaa dhashay ilmo yar ninkeedana safar ayuu ku maqnaa gurigana markaa waxaa joogay iyada iyo ilmihii yaraa iyo aabaheed habeenada ka mid ah ayaa ilmihii yaraa xanuunsaday gabadha ilmaha dhashayna waa gabar faqiirad ah oo aan haysan wax lacag ah oo ay daawo ugu iibisay ilmaheeda xanuunsanaya wax kaleba iska daaye reerka ma aysan haysan xitaa wax cunto ah oo ay cunaan habeenkaas laakiin hal shay ayay haysatay oo ah inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barido waxayna bilowday inay salaad u istaagto oo ay tukato waxayna sameeynaysay markasta ay salaada dhamayso inay ilmihii yaraa oo xanuunsanaa xuma daranna hayso inay maraqooyan marmariso oo ay ku qaboojiso waxaa la gaaray bartamihii habeenka iyaduna intaa Ilaahay ayay baryeysay waxaa la soo garaacay albaabkooda waxaana maqlay oo ku soo baxay gabadhii odayga dhalay oo ku yiri waa kuma markaasuu yiri waa digtoorkii odaygii gabadha dhalay isagoo yaaban ayuu albaabkii furay kadibna ninkii albaabka soo garaacay ayaa yiri waxaan ahay digtoorkii aaway ilmihii xanuunsanayay odaygii isagoo yaaban ayuu ku yiri soo gal waxaana la dulgeeyay ilmihii yaraa oo xanuunsanayay ilmihii yaraa ayuu baaray kadibna daawooyin ayuu u qoray wuuna soo baxay albaabka guriga markuu maray ayuu yiri keena lacagtii aan ilmaha ku baaray ina dadajiyo waan daasanahay markaasay gabadhii tiri wallaahi waxba ma haysano oo reer faqiir ah ayaan nahay xitaa cunto aynu cunno ma haysano iska daa lacag baaris markaasuu digtoorkii ugu jawaabay miyaydaan xishoonaynin maxaad ii soo wacaysaan kowda habeennimo haddaydaan lacag bixin karaynin markaasay gabadhii tiri dee anigu kuumaana wicin oo teleefon kuuma soo dirin markaasuu digtoorkii yiri dee yaa i soo wacay tan kale gurigan miyaanu ahayn gurigii hebel markaasay gabadhii tiri maye gurigiisii ma ahan ee gurigiisa waa kan dariskeena ah ee inagu xiga markaabaa digtoorkii aad ula yaabay waxa dhacay wuxuuna ku yiri oo markaa idinku yaa tihiin waxay ku yiraahdeen annagu ilmaha yar ayaa inaga xanuunsanayay caawa markaasuu digtoorkii yiri ilaahay ayaan ku dhaartay caawa wax kale ilaahay ima uusan soo dirin inaan ilmihiina daaweeyo mooyaane markaasuu digtoorkii yiri ilmihii yaraa dib iigu celiya mar kale ayuu ilmihii baaray oo daawo u qoray kadibna inuu baxay ayuu u soo iibiyey daawadii waliba casho ayuu ugu soo daray waliba intaa oo kaliya ma ahane wuxuu u qoray mushaar joogto ah oo uu bil walba uu siinayo isagoo leh ilaahay ayaa ii soo diray reerkan oo sababna iiga dhigay inaan wax siiyo ilmahoodii yaraa ee xanuunsanayayna aan daaweeyo halkaas ayay ku heleen reerkii biil joogto ah ilmihii yaraana loogu daaweeyey Allahu akbar ducada waa cibaado iyo magangeliyo dalab iyo isliidid Allah hortiisa Allah kor ahaye wuxuu yiri وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين oo rabbigiin wuxuu yiri ibarya waa idinka aqbalaye hubaalku way iska weyneeyay cibaadadayda yacni inay ibaryaan waxay geli doonaan naar iyagoo dulaysan allahna waa kan ugu deeqsisan deeqsiyaasha haddii uu addoonku baryo waa ajiibaa oo ka abaalmariyaa khushuuciisa allah hortiis nebiguna sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi hubaal rabbigiina waa xishood badane deeqsi ah ka xishooda addoonkiisa hadduu gacmaha u horsaday inuu u soo celiyo iyagoo eber ah haddaba walaalayaal aynu badinna baryada alle waayo baryada alle ayaa lagu baahi baxaaye